gumaystaha Sahayuuniyiinta ayaa aaminsan in duqeynta goobaha warbaahinta soo gudbisa dhacdooyinka oo ka kaalmaynaya qarinta dembiyada dagaal iyo gumaadka u wado. sidaasi darteed Tel Aviv ayaa ku dadaalaysa aamusinta saxaafadda iyo ka hortagga inay baahiso wararka iyo sawirrada xasuuqa ay geysatay. diyaaradaha dagaalka ee ku hubaysan hubkii ugu casrisanaa ayaa duqeyn iyo burburin ka wada meelihii laga heli lahaa nolosha asaasiga sida wakaaladaha biyaha, korontada iyo cuntada. waxaa la dhihi karaa gumaystuhu waxa uu adeegsaday 3 taatiko oo ka dhan ah warbaahinta. waa midda koowaad ee inuu ku dadaalo inaan wax war ah laga helin Falastiin ay ku jirto marinka Gaza, loona bedelo goobahaasi xabsi hawada ka furan iyadoo wadda siyaasad ku dhisan ka eryadda wariyaasha goobahaasi. waxaa la wada xasuustaa in tafatirihii gobolka u qaabilsanaa wakaaladda Anadul Torgood Albi Boyraz uu 2 jeer ku dhaawacmay, sidoo kale sawirqaadaha Anadul Mohamed Aluul, wariyaha sawirqaadaha Mustafa Al-Xasuuni iyo darawalkoodii ayaa iyaguna ku dhaawacmay duqeymaha Sahayuuniintu ka wadaan marinka Gaza. dhinaca kale diyaaradaha dagaalka ayaa duqeymo la beegsaday xarunta kanaalka TRT Carabi ee Gaza iyadoo ay si xun ugu dhaawacmeen wariyaashii ka howlgalayay. waxaa la wada ogsoon yahay in shabakadda TRT iyo Anadul ay yihiin shabakado warbaahineed oo caalami ah oo Turkigu leeyahay, iyagoo soo tabiya wararka la xiriira gumaadka iyo xadgudubka gumaystaha ee ka dhanka rayidka. taatikada labaad ee ka dhanka warbaahinta ayaa marin habaabinta iyo been abuurka xaqiiqooyinka. waxa uuna adeegsanayaa markaan gumaystaha duqeynta xogta. marka laga soo tago dadaalka uu ugu jiro aamusinta warbaahinta ka madaxa bannaan iyo baacsiga suxufiyiinta, gumaystuhu waxa uu ka shaqaynayaa aamusinta codka xaqiiqada isagoo adeegsanaya qaabka marin habaabinta warbaahineed. adeegsiga shirkadaha warbaahinta baraha bulshada ayaa ah taatikada saddexaad oo adeegsanaya gumaystaha Sahayuuniyiinta, isagoo kaga gol leh in lagu daboolo xaqiiqooyinka iyo dembiyada uu ka gala dadka reer Falastiin. shirkadahan ayaa kala shaqeeya ka hortagga faafinta wararka soo ifbixinaya xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta gudaha Falastiin.